Waxaa soo badanayay maalmaha dambe dadka caanka ah ee u tahriibaya dalka Mareykanka. Dad badan Soomaali u badan ayaa la arkayaa ku sii qulqulaya dalka Mareykanka iyaga u arko inay ka nolol fiican tahay dalalka ay ku sugnaayeen. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ah wax dadka inta badan ay isweydiinayaan ayaa ah in dad caan ah ku nool dalal ay nolol fiican ka haystaan in ay bilaabeen tahriibka loogu socdaalaya dalka Mareykanka ah. Dadkan ayaa waxaa ka mid ninka caanka ka ah TikTok ee lagu magacaabo Ayuub Kaarle. Ayuub Kaarle ayaa ku noolaa dalka Belgiumka, iyada la og yahay dalka Belgiumka in uu yahay dalalka ugu nolosha wanaagsan dalalka Yurub. Sidoo kale waxaa dadkan ka mid ah YouTuberka caanka ah ee CK. Ninkan ayaa ku noolaa dalka Austria. Sidoo kale waxaa ka mid ah dadkan socodka tahriibka ku galay ninka lagu magacaabo Cabdi Dhaanto magaalada Muqdisho ka soo kicitimay iminka galay dalka Mareykanka. Xilli xaadirkan aan fiidiyowgan sameynayo waxaa ku xayiran eelaboorka Istanbul dad badan Soomaaliyeed kuwaas doonaya in ay u tahriibaan Mareykan iyaga sii maraya dalal kale Latin Amerika ah inta aysan lug ku gelin Mareykanka.